Waxaa maanta si rasmi ah u furmay horyaalka kubadda gacanta ee dalkeena Soomaaliya ee gabdhaha waxaana loo qabtay tartankan dhammaan kooxaha ka soo qaybgalaya horyaalka kubadda gacanta ee dalkeena Soomaaliya. Kulanka koowaad ayaa waxaa lagu daahfuray kooxaha Hagen iyo kooxda Muqdisho City Club. Galabta ciyaar aad u qurux badan ay soo bandhigeen walow ciyaarta aysan markaasi sida waqtiga loogu talagalay aysan ku dhammaan. Waxaa markaasi galabta raxmada Allah markaasi da'ay roob oo galabta kulankaasi loo baajiyay, waxaana ciyaartan laga ciyaari doonaa dib. Waxaana hoggaanka haysay kooxda kubadda gacanta markaasi Hagen, iyaguna labada kooxood ay ahaayeen kooxo si weyn isku soo diyaariyay, waxaana ay rajeynayeen koox walba inay markaasi la timaado ciyaar wanaagsan sidaasina ay guul ku qaado. Laakiin ciyaartan maysan noqon mid natiijo sax ah ay ku soo baxdo, waxaana la filayaa in la ciyaari doono maalmaha soo socda. Sidoo kale kulanka Berito ayaa markaasi wada ballansan kooxaha Horseed iyo sidoo kale kooxda Madbacadda oo wada ciyaari doona, waana kulan aad u xiiso badan oo iyagana la sugi doono. Waxaana laga yaabaa kulankan inuu ka soo hormaro Hagen iyo MMC oo la filayo in maalinta Berito galinka hore 8 duhurnimo ilaa 9 galabnimo la ciyaari doono. Kadibna ciyaarta labaad ayaa loo gudbi doonaa maadaama ay ciyaarta maanta baaqatay. Waxaana la filayaa in ciyaar aad u wanaagsan tartankan uu ku soo idlaado, waxaana markaasi la nasan doonaa 2 maalin. Sabti iyo Axad lama ciyaari doono. Isniinta ayaa waxaa ciyaari doona Madbacadda iyo Hagen. Sidoo kale Talaadada ayaa ciyaari doona Muqdisho City Club iyo Horseed. Sidoo kale Madbacadda iyo MMC oo labadooduba ku cusub ayaa is arki doona tartankani. Hagen iyo Horseed oo labadooduba xifaaltan aad u wanaagsan ka dhaxeeya ayaa iska hor imaan doona. Sidoo kale kooxda Hagen waa mid markaasi guuleystay oo horyaalka ayay difaacanaysaa iyadoona rajo wanaagsan ka qabto tartanka xiisaha badan ee horyaalka Soomaaliya. Dhanka kale naadiga Hagen ayaana ka yareysan in sanadkan ay dardar xoogan ku soo gasho, iyadoo doonaysa in mar kale ay koobka ka ceshato kooxaha la ciyaaraya Hagen iyo sidoo kale kooxaha Muqdisho City Club iyo Horseed iyo Madbacadda. Koobkan halka uu aado waan idiin soo gudbin doonaa haddii